haddaba magaalada muqdisho qaraxyada ay bilooyinka ka roonayd inay dib u soo noqdaan oo bishani oo keliya ay dhacaan ilaa iyo 4 qarax maxaa sababay su'aashaas iyo su'aalo kaleba waxaan u bandhigay taliyii hore ee nabad sugidda General Cabdiraxmaan Tuuryare wuxuuna markaasi ugu horeyn uu ku bilaabayaa bal sida uu u arko waxyaabaha qaraxyadani haatan keenay. waa mahadsan tahay waxaan isleeyahay nimankii qaraxyada soo diri jiray ayaa weli waqti fiican iyo xuruuf fiican ay ku nool yihiin marka meelihii joogeenna waa joogaan dagaal oo magaalada muqdisho ka baxsan oo weerar weyn oo lagu qaaday oo ayaga saamay karan ilaa hadda ma maqal inuu bilowday wax yaroo ku dhifoo ka dhaqaaqa mooyaane arrintaas waxay noqon kartaa inaan ayaga culays la saarin oo culays uusan saarnayn oo ay fikirayaan waa qodobka labaadna xamar culays ha laga saaro ciidamo badan ha lagu daadsho laakiin qorshaha markasta way bedelaya oo haddii meel culays laga saaro qorshe kale u bedeshaa duruufta xasiloon la-aanta siyaasadda ay keenaysan ay ayaga saacidayso oo ay helayaan dad badan oo siyaasad ku mashquulsan oo ayaga ku mashquuli lahaa culayskaasna uu ka degayo marka arrimahaas iyo arrimo badan oo kale ayaan isleeyahay way sabab u tahay marka muddo 6 bilood ah qarax sidaa u weyn ma uusan dhicin marka laga reebo 4 qarax ee bishan aynu ku jirno dhacday marka inay qaraxyadu soo noqdaan maxaa loo aanin karaa waa mahadsan tahay waa la dadaalay dhowrkii bilood la soo dhaafay waa la roonaa laakiin waxa lagu roonaa ma ahayn qorshe istiraatiijiya oo dhammaystiran ma ahayn dadaal yaroo xamar laga sameeyey ayay ahayd marka waxaan isleeyahay nimanku mar hadday meelihii ay haysan jireen weli ay haystaan mar haddii canshuurtii magaalada ay weli qaadanayaan oo qarash la-aan aysan hayn mar haddii qalabkoodii iyo hubkoodii iyo waxyaabahoodii ay haystaan ayagaa xilliga munaasabka ah oo ay weerar qaadayaan ayaga ayaa go-aan ka gaaraya ee ayaga go-aan loogama gaaro laakiin ayagu go-aan waxay nooga gaaraan sida aan amnigeena ula falgelin marka waxaa laga yaabaa maanta ay hoteelo qarxiyaan in hoteeladii iyo baabuur qarax gaarsiisa lagu mashquulo haddii bistooladaydu ay dilka badiyaan in bistooladaydu iyo xaafadihii lagu mashquulo waxaan laakiin weli lagu fikirin nimankii weli waa nool yihiin waa soo duulayaan meelaha ay kasoo duulayaan xoog ha loo weeraro oo ha loogu tago aad looguma fikrin maaqiyaasee marka dagaalka asaaskiisu waa kaas amnigu inuusan aad ugu mashquulin siyaasadda oo amniga uu ku mashquulana waa muhiim waan gartay marka sida adiguba aad ka dhawaajisay waxa aad tiri arrimahani siyaasadana kolley kama madhna sida in la soconana amniga ciidamada ayaa gacanta ku haya marka sidee siyaasaddu amniga u saamayn kartaa waad isleedahay waxay u saamayn kartaa dadkii siyaasiyiintu waa kala jiidanayaan dadka siyaasiyiinta haddaysan wax ku heshiin shacabku qaarna dawladdu taageersan yahay qaarna dadka kale oo siyaasadda danaynaya ayuu taageeraya waxaa laga yaabaa ciidanka amniga sugaaya marka inaan isku si loo arag labo marka dawladda mandate fiican ay haysato waqti fiican ay haysato sida ciidamada ay ma ogtahay kalsooni u haystaan iyo marka dawladda mandatekeedu dhacayana isma lahan annagaa kusoo shaqaynay annagaa isnaqaana wax yar baa xaalad abuuri kara ciidankii la rabay in loo fahmo inay amniga sugayaan oo guryihii baarayaan oo nafta badbaadinayaan ayaa at the same time waxaa loo fahmi karaa ciidan wax caburinaya marka sideedaba siyaasadda inay degto oo layska fahmo oo siyaasiyiintu isfahmaan ayaa muhiim ah haddaysan dhicin caqabada ugu weyn dhinaca ay ku leedahay waa dhinaca amniga ugu dambayn mar haddii marka dalka uu u gudbayo marxalad kala guur oo doorasho si marka loo xaqiijiyo amniga dalka maxaa tallaabo oo markaasi loo baahan yahay in la qaado waxaa loo baahan yahay waxyaabaha soo socda kow in dawladdu muujiso in hay-adaha amniga ka shaqaynaya dadka ay ka madax bannaan yihiin siyaasadda waa qodobka labaad in la fahamsan yahay marxaladda lagu jiro ciidamada dadka saraakiisha ee maamulaysan lagu wacyigeliyo lagu tababaro oo dadka howlgallada loo diraayo tababar joogtaa iyo wacyigelin joogtaa la siina 3 waxaa aada u muhiima dawladdu gacanna inay doorasho iyo wadahadalka siyaasadeed looga shaqeeyo gacanna nimankii lagu raacday haddii nimanka aan la raacdaysan inta dabawareegan lagu jira magaalooyin badan ay soo qabsanayaan xamar ay kusoo aruurayaan dawladahana ayagaa rida nimankaan ogaada dawladaha ayagaa rida mar kasta aniga ilaa 4 dawlan lasoo sheegay oo Abdullah Abdullahi Yusuf dawlad kasta marka xilligeedu dhammaan rabo weerarada iyo howlaha ay fulinayaan waa ka badan yihiin marka kale marka 6 bilood soo socota aad bay khatar u tahay in muddaabay isku diyaarinayeen oo anagu aan ugu qabnay inaan ka raynay oo maadaama aan wax dhicay qodobka u dambeeya waxa weeyaan kalsoonida dadka in la soo celiyo dadka la wacyigeliyo oo ciidamada iyo dadka la isku xiro xuquuqdii xurriyadda in dawladdu ka qaaday haddii tuusan yihiin kuwan kalena ay xuquuqdii nafta ka qaadayso laba xuquuq ayaa qofkii ka maqnaanaysa marka dawladda amniga ilaalinaysa inaysan dadku xuquuqdooda siyaasiga aysan uga baqin amniga muhiimay u tahay kaasi wuxuu ahaa taliyii hore ee nabad sugidda Soomaaliya General Cabdiraxmaan Tuuryare oo khadka telefoonka igu waramayay